nebi aadan iyo xaawa waxay isku dhaleen 40 caruura. 20 ka mid ah waxay ahaayeen wiilal, halka 20 kalena ay ahaayeen gabdho. laba kasta waxay ahaayeen mataano. labadii mataanana isma guursan karin, laakiin wiilku waxa uu guursanayay gabadh da'da ku xigta ah oo aan ku mataan ahayn. xigmadda Ilaahay ayaana ahayd in faraca nebi aadan ay bataan. caruurtii ugu horeysay ee nebi aadan waxay ahaayeen Haabiil iyo Qaabiil. Haabiil iyo Qaabiil ayaa isku qabsaday gabar. Qaabiil ayaa doorbiday gabadhii Haabiil ku aaday maadaama ay qurux badnayd. halkaasina waxaa ka dhashay isqabqabsi oo ugu dambeyn sababay in Qaabiil uu dilo walaalkiisa Haabiil. Haabiil ayaana sidaa ku noqday qofkii ugu horeeyay ee la dilaa. Qaabiilna waxa uu halkaa ku noqday qofka ugu horeeyay ee wax dila. Qaabiil ma uusan aqoon sida loo duugo maadaama qofkii ugu horeeyay uu wax dila ahaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa u soo diray tuke si uu u tusiyo qaabka uu u duugi lahaa walaalkiisa. Qaabiil ayaa yiri, ma waxaan ka cadsay inaan u duugo walaalkayga sida tukahaas uu u duugay walaalkiisa kale. muddo kadib Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa nebi aadam ku galladaystay bedelkii Haabiil. waxa uu siiyay Shiith calayhi salaam oo ah nabiga inuu ka hadlayna caawa. Nabi Shiith calayhi salaam waa mid ka mid ah wiilashii uu dhalay nebi aadan, waxa uuna ka yaraa xagga da'da walaaladii Haabiil iyo Qaabiil. nebi aadan nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxa uu u dardaarmay wiilkiisa Shiith ka hor dhimashadiisa. waxa uuna baray saacadaha habeenka iyo maalinta, sidoo kale cibaadooyinka la yimaado. waxa uuna u tilmaamay inay duufaano dhici doonaan muddooyin kadib. geeridii nebi aadam calayhi salaam kadib, xilkii waxaa la wareegay nebi Shiith. micnaha Shiith waa hibadii Eebbe subxaanahu wa tacaala, waxaana magaca u bixiyay aabaheen Aadam kadib markii la dilay wiilkiisa Haabiil oo uu dilay walaalkiisa kale ee Qaabiil. sida rasuulkeena laga wariyo nabadgelyo naxariis dushiisa ha ahaatee, waxa uu yidhi rasuulkii Ilaahay subxaanahu wa tacaala, Ilaahay waxa uu soo dejiyay 100 saxiifadood iyo 4 kitaab. Shiith waxaa la siiyay 50 saxiifadood. xadiiskan waxaa wariyay Abu Dhar. abtirsiinta ubadka nebi aadan waxay sii maraan nebi Shiith sababtoo ah dhammaan caruurtii kale ee nebi aadan waa ay dabar go'een. nebi Shiith calayhi salaam markii uu geeriyooday kadib, waxaa Eebbe subxaanahu wa tacaala soo diray nebi Idriis calayhi salaam.